daawadayaal waad salaamantiin dhammaantiin meel kasto aad dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa kanaalka Right Click Shop magacaygu waa Mr Click waxaan halkan ku soo gudbiyaa muuqaalo ku saabsan technology iyo isticmaalka aaladihii ugu dambeeyay sida aad ciwaanka sare ku soo aragteen waxaan doonayaa maanta inaan muuqaalkan idin kula wadaago sida aad ku basaas karto qofka aad jeceshahay WhatsApp-kiisa haddaba waxaa jiro muuqaal hore oo aan ka soo diyaariyay haddii aad muuqaalkaas daawan linkiisa waxaan kugu reebay dhanka description-ka ee muuqaalkan aad daawanayso soo daawo muuqaalkaas waxaan ka codsanayaa inta muuqaalka u guda gelin inaad kanaalka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka like siiso hana iloowin inaad furato gambeelka sifo aad u noqotid daawadayaasha u horeeya ee muuqaalada aan soo gelin Audio Jungle. waxaad u baahan tahay inaad soo rogato mise aad soo dejisato application-kan kaga muuqdo shaashada application-kan magaciisa waxaa la WhatsApp waxaana loo soo gaabiyaa WA online haddaba application-kan waxaad ka heli kartaa Play Store-ka mise muuqaalkan aad daawanayso hoostiisa dhanka description-ka aad ka heli kartaa halkaas ayaan linka kugu reebay halkaas ayaa ka soo dejinaysa marka application-ka waa kan afraad ee meesha kaga muuqdo marka application-ka sidan ayuu u egyahay application-kan waa safe wax dhibaato uu ku keenay malaha marka waxa soo dhawan gareystay application-kan 100 milyan dhawaad oo qof ayaa soo dhawan gareysatay marka application-ka wax dhibaato uu leeyahay ma jirto kaliya wuxuu ka caawinayaa inaad ogaato mise aad basaasto qofka aad jeceshahay WhatsApp-kiisa application-ka sidatan ayuu egyahay waxaana ku soo bixi doona halkan ka muuqato permission-nada inaad u allow gareyso waxa taabanaysa meesha ku qoran tahay continue kadib waxa ku soconaysa halkan allow ayaad leedahay haddii aad cusub tahay application-ka markood aad isticmaashay tahay waxa taabanaysa meesha ku qoran tahay I am new user haddii aad hore u isticmaali jirtay waxaad ka dooranaysaa I am already registered ugu dambeyn halkan ay imanaysaa ay ku qoran tahay privacy policy waxaad akhrinaysaa privacy policy-ga iyo sida u shaqeeyaan iyo sida loo isticmaalo haddii aad ka heshay application-kan waxaad taabanaysaa agree kadib waxa ka soo dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay accept kadib halkan aad imaanaysaa marka halkan ay imaato waxa taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay add contact balasta iyo baasha meesha madaxa ku sawiran ayaa taabanaysaa kadib qofka aad rabtid inaad sasto WhatsApp-kiisa ayaa halkan numberkiisa gelinaysaa meesha u hooseysana waxaad ku qoraysaa magaciisa kadib meesha waxaad ku qoraysaa magaciisa magacaad rabto ay wala bixi kartaa qasab ma aha inaad ku qorto magaca WhatsApp-kiisa haddaba waxaa laga baahan yahay numberka inuu ahaado international format haddii aad Kenya joogto numberka waxaa laga hormarinayaa marka international format aad ka dhigaysid +2547 haddii aad Soomaaliya joogtana waa +2561 marka sidaas ayaad u qoraysaa kadib waxaad dooranaysaa okay ayaad dooranaysaa qofka hadda waan ku xirnay waxaan ku xirnay in uu application-kan noo basaaso application shaqadiisa waxay tahay in uu ku soo basaaso qofka marka meeshan gambalka ayaad furanaysaa yarka hadda aan taabanay ayaa taabanaysaa marka uu qofka WhatsApp uu soo galo markaste oo aad ku jirin waa lagu sheegayaa waxa lagu leeyahay qofkaas iyo qofkaas waa online WhatsApp ayaa lagu soo leeyahay marka application-kan waa application inaba aan caadi ahayn oo muhiim ah waxaan filayaa in aad application ka heshay si halkan ka muuqato qofka hadda uu soo galay oo iliis sheegaya waxa leeyahay qofkaas tactico yarka lagu magacaabo uu soo galay WhatsApp-ka ayaa leeyahay marka application-kan waa application inaba aan caadi ahayn hadda mar labaad ayaan soo galaya telefonkiisa ana haysto marka waad aragtaa uu isoo sheegaya hadda ani codka ayaan ka xiray telefonka laakiin hadhow uu soo qaylinaya waad ku baahsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan filayaa in uu muuqaalkan ku cajab geliyay haddaba ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad u soo gareyso mise aad la wadaagto asxaabtaada kale haddii ay jirto wax su'aal ah waxaan filayaa inaad ku reebi doonto dhanka comment-ga ee muuqaalkan waxaana kugu soo jawaabi doonaa insha Allah si degdeg ah